habeen wanaagsan oo wacan guys, sida u dhantiin meel kasta dunida ka joogtaan, fadlan hadii tahay daawashadaas kuwara channelka subscribe noo saar. Maanta shaxda waa la soo yara daahay sababtoo mashquul awgees. Marka hadda intaan ayaan isku soo aadiyay oo xoogaa meelo badan ayaan kasoo fiiriyay. Marka 12 kooxood events waa ujeeda 12 kooxood halka odds-ka uu yahay $4.46 waa odds fiican. Marka shaxdan shaxdeena caawa waxaa ugu horeysa kooxdan Academia Deportiva iyo Cantalo oo ka ciyaara Peru Premier Divisionska. Marka tan waxaan u isticmaalaynaa marka to happen in first 5 minutes ayaan u isticmaalaynaa oo waxaan leenahay 5 daqiiqo ee ugu horeeya wax gool kama imaanayo. Inshallah in ka imaanin ayaan rajaynaynaa. Waxaa kusoo xiga Sport Huangayo ugu qorantahay iyo Deportiva Municipal. Marka iyadana sidoo kale the Peru Premier Divisions waaye. Sida ujeeda iyada to happen in first 5 minutes waaye. Sidoo kale iyadana wax gool ma ka imaanayo aan leenahay 5 daqiiqo ee ugu horeysa. Saddexaad waxaa ku jira Chelsea Women iyo West Ham United Women oo ah horyaalka ay ciyaaraan gabdhaha England Super League Women waaye tan meeshaas aan ka soo xulay. Marka waxaan leenahay total over 2 gool bayna qowsaynkaas horena igu sheegay waa idinku sheegay bayna qowsaynkaas labada marka aragtaan labadaas waxay ka dhigan tahay 3 gool ay ka dhigan tahay. Laakiin haddii 2 gool meeshan oo kaliya uu ka yimaado waxay noqonaysaa rebound in hashada 3 hashano in si toos win toos ay hesho. Sida ujeedaan 2.5 taas oo qoyska ku jira 3 gool oo toos ah. Labadaas waxa waaye fursad waaye waa opportunity. Marka labadaas daarato 2 kaliya hadii timaad 2 gool waxay noqonaysaa rebound. Laakiin 3 haday iska dhaliyaan labadana meesha hore wax ka yimaaday waa win toos ah. waxaa ku soo xiga Tujuolo maxaa ku yiraahdaa kooxdan ma wala akhri karo Trujillo ku qoran tahay iyo Melilla iyadana sidoo kale iyadana waa Spain meelahaas ay ka ciyaartaa. Marka iyadana first to happen first 5 minutes ayaynu isticmaalaynaa no goal waa iyadana 5 daqiiqo ugu horeysa in gool ka imaan karin. Marka waana aragtaan odds-ka markasta aniga muhiim noo ah odds-yada badan markaasaan ugu laabano kale oo ujeeda $3 satan $2 xoogaa waa 2 koox oo isku awood ah. Marka la fiirsho Villarrubia kooxda iyo Illescas ku sii xigto Villarrubia iyo Illescas waxa ku qoran tahay iyadana sidoo kale to happen in first 5 minutes ayaynu isticmaalaynaa oo ah iyadana no goal inayna 5 daqiiqo ugu horeysa ka imaan kar wax gool ah. waa Spain Federation Cup iyadana ka ciyaarta. Kooxdan kale ku sii xigto iyadana oo CD iyo Morolo CB ku qoran tahay iyadana sidoo kale Spain Federation Cup waaye ay ka ciyaartaa iyadana waxaa leenahay 5 daqiiqo ugu horeysa no goal waaye. Sida ujeedaan iyadana firku waa isku odds $2 iyo $3 ayaa kala saaran. Inshallah in iska dhalinaa rajaynayna. waxa kale ku soo xigto Hague Women iyo Paris Germany aad taqaanaan gabdhaha waa UEFA Champions League Women ka ay ciyaaraan gabdhaha. Marka tan waxaan leenahay total ayaan isticmaalaynaa over inay guud ahaan ciyaartani guud ahaan inay ka imaan karto 2 gool oo kaliya ayaan leenahay meesha hore wax ka yimaado. Marka wax kale ku sii xiga Real Madrid Women aad taqaanaan iyo Rosenborg iyadan gabdhaha qaybta gabdhaha. Marka sida ujeedaan Real Madrid badan 3 waa 18 dhururuq ayaa saaran halka kooxdan kale ay saaran tahay qaybta gabdhaha oo UEFA Champions League Women ka $81. Marka waxa ka fiican inaad dhahno total wana isticmaalnay
total 1 oo ah Real Madrid kaligeed inay dhali karta 3 gool qaybta gabdhaha ayaa isticmaal. Adiga haddaa ka cabsinayso kale iska dheh Real Madrid aa badinaysa iska dheh waa dhihi kartaa kaligeed aa badinaysa iska isticmaal da u baahanta. laakiin aniga hadda sidaan ay la qurux badan inaan dhaho. waxaa kale kusoo xiga Juventus Women's iyo HB Koke ay qoran tahay gabdhaha waa iyadana soo UEFA Champions League Womenka waaye. sidoo kale tani waxaan leenahay total over 2 gool oo kaliya ayaa ka yimaada labada dhinac meesha rabo isigana inuu waxa ka yimaado. waxa kale kusii xiga Roma Bayern Munich iyo Real Sociedad Women's oo iyagana ka ciyaara UEFA Champions League Womenka qaybta gabdhaha iyadana waxaan leenahay sidoo kale 2 gool total over over 1 hal gool 0.5 ujeeda hal gool waa xiran tahay laakiin labada gool aa furan waa $1.17 aa saaran 2 gool ay ka imaanaysa. marka waxa kale kusii xiga Ajax Women iyo Arsenal Women's hataa xasuusataan tani hadda ka hor waxay galeen Baraja galeen lugta labaad waa tan ay wada ciyaarayaan tii hore Baraja galeen. marka total over waxaan leenahay idan 3 gool ay ka imaan karto labada dhinacba Ajax iyo Arsenal inay idan 3 gool ay ka imaan karto labada dhinac. kuwan marka sidaan ka warqabo Ajax waa Qatar Arsenal waa Qatar. hadda kor waxa xasuustaa kulankii hore ay labadan wada ciyaarayeen Arsenal oo home ah iyo Ajax oo away ah. waxaa xasuustaa Arsenal inay saarneed 15 senti meelahaas halka Ajax ay saarneed $39 ay saarneed balse ciyaartani hadda xasuustaan Baraja ayay ku dhamaatay. marka tan laakiin marka ka badan marka 3-3 ayay wada galeen laakiin tani waxaan rajeynaynaa ka badan inay ka timaado intaas oo because waa laba kooxood oo weerarkooda uu aad u wanaagsan yahay. marka guud ahaan marka waa kana koodkina waa kaasa. marka guud ahaan shaxda caawa intaan ayaa kusoo gunaanadeena aad u mahadsantihiin.